dhibaato hadday kugu timaado makhluuq ha u cararin khaliqa xaggiisa u carar kaana idaa xasabahu amrun afzaca ila asalaa haddaad mid ku tiraa dhibaata ay haysato ku yimaado wax ku weydiisanaya war bal laba ragcad ko ilaahay xaajadaada weydiiso waa run buu ku leeyahay walaakin war walaakintan ilaahay daba wada ka dah laakintan aad ilaahay daba wado ka dah midba maalinoodii mid waxbuu meeshaasan joogayahay waxbuu ii sheeg waxaan leeyahay rabbiga calaaqa la yeelo oo rabbiga subxaanahu wa tacaala jeclow oo isaga bari oo ducadaa uu ku baray oo kale la imow xaajadaada ilahay waa ku gudaya ilahay agtiisa wax mustaxiilana ma jiro korka waxa jooga isaga iskale iyo caalamu almalaa'ika dhulka waxa joogana isaga iskale ilahay quraanka wuxuu noogu sheegay alaa ina lilaahi man fi الsamaawaati waman fi اlardi dadkaba ilaahay baa le waxba ma samayn karaan bigayrihi waxba ma samayn karaan hadday gaalo ahaadaan iyo hadday indho yar yihiin iyo hadday indho waaweyn yihiin iyo hadday cadcad yihiin hadday madow yihiin kulligood ilaahay bay gacanta ugu jiraan waxba ma samayn karaan waxba ma dhibi karaan waxba ma tari karaan ilaa biidnihi subxaanahu wa tacaala ilaahay marka wuxuu kaa rabaa inaad yaqiinta ku noolaato laa ilaaha ila allah waa kelimad weyn cadamadeeda iyo ikhlaaskeeda laga rabaa inay qalbigaaga ay gasho nolol maalmeedkaada inay gashaa la rabaa qur'aankuna wuu ku soo celceliyaa in badan fitrat annaas sida ilaahay dadka fitrat allah alatii fatara annaasa calayha in koonkaani rabbi leeyahay in makhluuqaadkan ayna iska samaysmine mid sameeyey uu jiro kaasina uu mid qura uu yahay mulkigan iyo boqortooyadan iyo maaragtay nidaamkan cajiibka ahee aan isdaba maraynin ee shaqaynaya habeen iyo maalin qorax soo baxaysa oo dhacaysa oo aan weligeed min maalintii ilaahay abuuray ilaa yowmi alqiyaama aan isbedelaynin oon ilbiriqsi soo daba maraynin waxaase iskama ahaanin rabbi baa sameeyey fitradu saasay odhanaysaa walaakiin shaydaanka baadiyeeyey oo waxyaalo kaloo xunxun u qurxiyey